waxaa noo muuqata in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu Puntland ku wado jiho aan la mahadin doonin kadib markii uu maamulka Puntland uu ka dhigay nidaam u eg ganacsi gaar loo leeyahay oo ka dhaxaya isaga iyo qoyskiisa. ciidankan waa ciidankii taliyahoodii ku dhintay Calmiskaad war-saxaafadeed ay soo saareenna shatan u qoran yahay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka difaaca Calmiskaad. ujeedo Puntland iyo halganka buuraleyda Calmiskaad Defense Force waa ciidankii ka soo dagaalamay buuraha Calmiskaad welina u taagan difaaca dalka, dadka, diinta iyo sharafka ummadda. muddadii ciidanku ku jiray halganka nafurnimada ah kaasoo aan weli fari ka qodnayn wuxuu ciidanku ku soo shaqeeyay duruufo adag oo isugu jira dayac iyo daryeel xumo. waxaa noo muuqata in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu Puntland ku wado jiho aan la mahadin doonin kadib markii uu maamulka Puntland uu ka dhigay nidaam u eg ganacsi gaar loo leeyahay oo ka dhaxaya isaga iyo qoyskiisa. ciidamada waxaa si gaar ah niyad jab ugu abuuray arrimaha soo socda. kow, waxaa gabi ahaan la dayacay halganka ay ciidamadu ka wadaan buuraha Calmiskaad. labo, waxaa ciidanka laga hor istaagay xuquuqdoodii asaasiga ahayd sida mushaharka, daryeelka caafimaadka iyo saadkii ay ku gudan lahaayeen waajibaadkooda. saddex, waxaa la lunsaday taakuladii loogu talagalay ciidanka ee laga ururiyey dekedaha iyo ganacsatada reer Puntland. afar, waxaa magacii Puntland iyo halganka Calmiskaad loo adeegsaday olole siyaasadeed oo lagu baadigoobayo kursiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo doorashooyin aan waqtigooda la gaarin. shan, waxaa dhaqaalihii lagu taakulayn lahaa ciidanka lagu laaluushay xildhibaano iyo siyaasiyiin u adeegaya damaca kursidoonka ah ee madaxweyne Siciid Deni iyo in lagu qabto shirar siyaasadeed oo dhaqaalihii ciidanku waaye lagu bixiyo. lix, maamulka uu hogaaminayo Siciid Deni wuxuu hor istaagay fursad kasta oo lagu tayeyn karay ciidamada Puntland gaar ahaan kuwa ka dagaalamaya Calmiskaad. toddoba, wuxuu sidoo kale caqabad ku noqday taakuladii ay dowladda federaalka ku garab istaagi lahayd deegaanada Calmiskaad sida baahiyaha caafimaadka, biyaha, xasilinta iyo dibadejinta bulshadii soo barakacday. sidaa darteed si loo badbaadiyo Puntland iyo mustaqbalkeeda waxaan ku baaqaynaa qodobada hoos ku qoran. kow, in si degdeg ah ay isugu yimaadaan isimada, siyaasiyiinta, uqaasha iyo haldoorka Puntland si looga tashado xaaladda Puntland iyo jihada ay u socoto ka hor inta aysan gaarin meel ka sii xun meesha ay maanta marayso. labo, in ciidanka Puntland aanay noqon ciidan ilaalow ah danaha gaarka ah ee madaxweyne Deni iyo qoyskiisa balse ay noqdaan ciidan u taagan difaaca dalka, difaaca amniga Puntland iyo kan qaranka Soomaaliyeed. saddex, waxaanu u soo joodinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay garab istaagto geesiyaasha Soomaaliyeed ee weli ka dagaalamaya dagaalka kula jira cadowga Daacish ee ku sugan buuraleyda Calmiskaad. afar, waxaanu si gaar ah u xasuusinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka
in loo dhaariyey ilaalinta badqabka dadka dalka iyo dhowrista midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidaa darteed waxaan u soo jeedinaynaa inuu qaato mas'uuliyadiisa lana yimaado tallaabooyin cadcad oo lagu garab istaagayo ciidamada u taagan difaaca dalka iyo ciribtirka argagixisada oo aanu ku halayn siciidani oo mas'uuliyadiisii gabay 5 waxaan ka digaynaa in Puntland loo adeegsado meel lagu wiiqo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanuna ugu baaqaynaa mucaaradka inaysan qayb ka noqon siyaasadaha guracan ee lagu wiiqayo midnimada dalka ugu dambeyn waxaan ballan qaadaynaa inaan sii wadi doono halganka aan kula jirno cadawga ku sugan buuraha calmiskaad annagoo difaacayna dalka dadka iyo diinta iyo ilaalinta midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya midnimada Soomaaliya waa muqadas Allahu akbar